joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena bulshada oo aan kusoo qaadanayna maantay Aamina Muuse weheliyo dadka intooda badan markay maqlaan magacaasi ay markiiba la soo boodayso laanta Soomaaliga BBC London. Aamino dadka inta badan waxay ka yaqaaniin dhagaha laakiin maanta waxaad daawan doontaan Aaminada idin soo tabisay wararka af Soomaaliga oo muuqaal ah. Aamino kusoo dhaw telefishinka. waa dhawahay waa mahadsantahay. Marka ugu horeysa Aamino waxaad nasisaa taariikhdaada nololeed oo kooban. aniga 26 December xamar ku dhashay. isbitaal Martini la yiraahdo. ayaan ku dhashay. reerkeena xamareed deganaayeen gaar ahaan waa degmada waa bari ama Ansaloti. caruurnimadeedii intii ugu horeysay meeshaas aan ku koray. xagga waxbarashada waxaan ahaa aabahay iyo hooyada curada ahaa marka waa iska garan kartaa aniga curadka waa aad loo jecelahay aad runtii igu dadaalay waalidkay waxaan soo maray xanaano caruur wax la yiraahdo nursery wadamada looga yaqaano iskuulkii xanaanada caruurta Allaahida la geeyay haddana aabahay waa la ahaan weyday college Nova Somola college oo dhahaayo oo Talyaani af Talyaani wax lagu baranayo haddana ay geeyay nursery haddana meeshaan ku qaatay sanadkii ugu horeeyana waxaan bagala boarding school ama college aan galay halkaas aan seexan jiray waxna ka cuni jiray kuna barbaaray noloshayda runtiina wax badan ka bartay markaan guriga ku laabtay ya caruurtii reerkeenii waa college-kii waa la baabi'iyay kacaankii ayaa baabi'iyay college-kii Talyaaniga ahaa marka anigu yarbaan wax aad ma fahmaynin laakiin wuxuu ku saleeyay kacaankii baa wuxuu yiri dawladda Maxamed Siyaad Barre caruurta baa lagu habaabiyaa ama lagu kiristaameeyaa anigu waxa ma dareemin college-kuna wuxuu ahaa college lacag laga bixiyo qof walba ma awoodin inuu canugiisa geeyo waqtigaas 100 shilin oo waqtigaas ayaa la bixin jiray bishii marka college-ka markii laga xiray iskuuladii caadiga ahaa oo dugsiga hoose dhexe hodan ayaa aniga haddana nasiib yeesho galay kadib reerkayaga guuray yaaqshidaan tagnay General Daoud ayaan haddana hoose dhexe ayaan bilaabay haddana bacdi waxaa u gudbay haddana reerkeena mar kale guuray waxaan u gudbay kowda luliyo iskuul dhahay isagana sayidka afkiisa ku yeelay ka General Daoud aan soo noqonay yaaqshid deegaan ahaan waa aabahay wuxuu ka ganacsan jiray guryaha foorno rootina wuu lahaa oo wuxuu ahaa nin ganacsiga foornooyinka shaqaysta baabuurta gaadiidka dadweynaha la dhaho tagaasida iyo waxaas lahaa marka gurgurkeena badnaa guryahana wuu iibin jiray aabe yaaqshid markaa u noqonay General Daoud sare ayaa haddana dugsigeyga sare oo dhan ku dhamaystay waxbarashadii jaamacadda markaan joogay wadankii waa qasmay markii wadanku qasmaan jaaris umaanan helin aan jaamacad dhigto qaska kasoo koow waxaba yaraatayba ardadii kasoo qalin jabinaysa dugsiga sare ayaa jaamacadda ardada tirada ay qaadan kartay jaamacadda ummadda markay ugu badato 1200 arday qaadan jirtay anana loodkeenii qalin jabiyay 82 waxaan ahayn 5,000 arday aad uga fara badan marka maanay suurta gelin inaan jaamacadda dhigto intaa wixii ka dambeeyay waxaan bilaabay inaan shaqeeyo shaqadii ugu horeysay UNHCR waxaan ka noqday clerk typist waxay dadka u yaqaanaan ama xoghaynna waa kasii hooseysaa laakiin waa teeb garaaci halkaas shaqo ka bilaabay luuqaan kasoo shaqeeyay kacaankii markuu adigu dhici rabay xoogaa soo dhawaatay markii horena waxaan ku jira ciyaalka ubaxa kacaanka October la dhihi jiray oo fanka loo abaabiyay kadib fanaanadaan noqday aktaradaan noqday gelinka dambana jaamacadda waxaan dhiganayay iskuulka private-ka Ingiriis aan baranayay gelinka kalena waxaan ka shaqeynayay tiyaatarka oo si private ah uga shaqeynayay aduu nolol kala duwan aan soo maray ilaa dawladda dhacdo markii dawladda dhacday wixii ka dambeeyay oo qaxi iyo wixii bilowday haddana qaramada midoobay shaqo u bilaabay sidaasaan ay nolosheedii intii hore saasay ahayd dhalinyarnimadii haddaan u laabo dhinaca saxaafadda goormaad kusoo beertay saxaafadda markii aan maalintii ugu horeysay oo ay noqotay in idaacad ka hadlo waxay ahayd sanad 1992 ay ahayd bishii August
markaasna idaacad gaara kamaanan tirsanayn laakiin maamulkii markaas jiray ururka haweenka dimuqraadiga soomaaliyeed oo marka burburku dhacay ka bacdi haddana waxoogaa madaxa lasoo yaro kacay ayaa barnaamijyo iyagu leeyihin haweenka keliya gaar u ah ayaa waxay contracti la galeen kasii dayn jireen idaacad waqooyiga muqdisho ku tiilay idaacaddaas ayaa markii ugu horreeyay ka hadlay anigoo laakiin aan idaacadda ka tirsanayn oo ururka barnaamijyadiisa keliya ku qoraa ilaa markii dambe ay iyagii maamulkii ila jeclaadeen inaan barnaamijyada kale ka qayb galo saasaan tartiib ugu siqay kadib waxay noqotay in warkii la ii dhiibo in wax walba laygu aamino markaa ka bacdina waxaan shaqo ka helay idaacaddii Unitaf oo markii dambe isu bedeshay Unisom howlgalkii qaramada midoobay oo 93 ilaa 94 meesha soo shaqeynaa idaacaddaas oo shaqeynaa ka bacdina waxa howlgalkii ka dhamaaday Soomaaliya way ka tagtay UN-kii qaramada midoobay Soomaaliya markay ka tageen anigu xoogaa waxaan ku soo dhacay shaqo la'aan markaa waxaan bilaabay baal kale inaan saxaafadda ka galo oo aan aniga iskay si madax bannaan u samaysto wargeysyo waxaan abuurtay marka laba wargeys mid waxaa ahaa hooye la dhahaa la dhihi jiray oo haweenka kaliya ka hadli jiray midna waxaa la dhihi jiray laacib wuxuu ahaa wargeyskii ugu horreeyay oo isboorti wax ka qora markii dawladdu dhacday kadib labadaba anaa abuurtay si private ku abuurtay waxna ku qori jiray wiilal kaleetana iyo gabdho kalena waa igala shaqayn jireen intaas kadib waxaan soo gaaray UNESCO hay-adda caafimaadka iyo sayniska iyo dhaqanka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa haddana shaqo ka helay waxaan u guuray markaa Nairobi UNESCO Soomaaliya inaan u dhaxeeyo oo aan dhexdooda ka shaqeeyo ilaa 4 sano igu qaadatay taasaa waxay ii saamaxday dhul badan oo Soomaaliyeed inaan tago gobolada dhexe kamid yihiin Boosaaso Garowe Bacadweyn Gaalkacyo ilaa iyo Hargeysa meelo badan inaan tago tababaro laba wajiib oo shaqayn jirnay barnaamij bay lahaayeen oo community radio camal ay u shaqayn jireen reedayaasha oo wadanka gudihiisa ka furan sida radio Gaalkacyo iyo kaleetana way adeegsan jireen oo ayaga ka soo dhexdeyn jireen laba program oo ay sameeyaan oo mid ah riwaayada socota afka qalaad soap opera lagu yiraahdo iyo radio magazine ama barnaamijka wargeys maxay wargeyska oo wargeysyada oo waxa ah barnaamij kooban oo waraysiyo iyo wax badan isugu jiro marka labadaas program ilaa markii dambe aan barnaamijyadii mid kamidana aktarad ka ahaa maadaama markii hore aan khibrad jilaanimo aan lahaa sida loo qoro daraamahana lagu tababaray kan kalena aan tifaaftira ka noqday markaa kadibna shaqada BBC-da uga soo gudbay ilaa hadda meeshaasaan joogaa 9 sanadood BBC-da la shaqeynaya BBC-da goorma kusoo bartay ma garan kartaa waqti 2000 Agost bishii Agost 24-keedii aan shaqaale u noqday BBC-da marka barnaamijyada BBC-da ka soo dhisay maxaa kamid ah barnaamijyada BBC-da waa fara badan yihiin waayo way ka duwan tahay runtii waxyaabihii hore shaqooyinka hore soo qaban jira waa shaqo contractiga waxbaad ku gelaysaa laakiin wax kastaa qabanaysaa ayaga titlekayga waxa weeyaan soo saare ama producer waa titlekayga laakiin presenter baan ahay oo idaacaddan soo daadihinayaa news reader baan ahay war baan akhrinayaa waraysyada waa qaadayaa wax badan baan sameynaya runtii wax kasta oo shaqo ah teamwork badan baa jira wada shaqayn badan shaqaalaha kala yeelanaysaan iyo xataa laamaha kale oo BBC-da ugu dambeyntii haddaan u leeyahay dhinaca ma jecli dhinaca siyaasadda maxaad u gudbinaysaa bulshaweynta marka u horreysay ku daawatay inta badan dhagaha kaa maqlaysay maxaad jeceshahay meesha sidee baad u diraysaa والله هذا الصومالي ده جود كلا بس كسلام يا لكن ما دام أنا قبل صحفية أنا هاي أنت صحافة كجرته أنا ربع أنا هل هذا الإرادة وحواي وحاول حلقون نقطع إن شقة رسوا عن وقدرته أظن عندنا نيجين وح حتى قسكة أو وضم كسر ما ذات كأنه كسوجينين أردنا عندك جل قصينا إيوه أنا أديك وحس برتو وايو أنا دلالك وحياه aan waalidkay inkastoo igu dadaalay waxyaabahan ku horumaray waxa ugu badan nafteyda is aaminay aniga is aaminay anaan wax badan is baray ilaa hadda wax ardayad baan ahay jaamacadan dhigtaa sharcigan bartaa marka waxbarashada mana laga gaboobo mana laga daalo mana laga way marka inay wax is baraan markay wax qorayaanna qalinka amaba afku waxa weeye wax badan ayuu
ayuu samayn karaa awood badan uu leeyahay awoodooda marka dhanka wanaagsan inay u isticmaalaan oo ay inay dadka ku heshiisiyaan inay dadka maaragtay ku hayaan anshaxa saxaafadan inay ilaaliyaan oo aanay qofku maadaama awood gacanta kuugu jirto adaa waxaad doonta aada iska sheegin waayo dad baad iska horkeeni karaysaa ummadda isku baabi'in karaysaa waxba dhibaato badan baad gaarsiin karaysaa marka intaasaan kula talin lahaa taasina waxay ahayd Aamina Muuse Weheliye oo dadka intooda badan ay maqal ahaan ay u arkeen laakiin hadda ay muuqaal tahay barnaamijkeena bulshadana waxaan kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Aamina waa mahadsan tahay adaa mudan يا طيبة يا